gudoomiyaha urur ay leeyihiin dadka ka ganacsada khudaarta oo ka dhisan magaalada Hargeysa laguna magacaabo Iidaan Cabdifataax Axmed Mohamed ayaa ka hadlay inay ka fakarayaan qorshe ay kamid yihiin sidii ay u heli lahaayeen waxyaabo khudaarta ay ka ganacsadaan lagu kaydin karo si waqti dheer ay u ooli karto iyagoo sameynaya isku tashi gudahooda wixii awoodooda oo markaa ku saabsan inay helaan arrimahaasi hadaba wariye Cabdullaahi Jaamac oo jooga magaalada Hargeysa ayaa wuxuu arrimahan ka wareysay Cabdifataax Axmed Mohamed wuxuuna markii hore si kooban uga jawaabayaa qiimeyntiisa sanadkii tagay wax soo saarka khudaarta ee la tabcay sida uu ahaa wuxuuna ku jawaabay waxa weeye haddii aan ka warramo sanadkii imkayna dhaafay runtii wuxuu ahaa haddii aan nahay xagga qudaarleyda amba dadka wax soo saara sanadkii ugu barwaaqada badnaa ee dalku ugu fiicnaa ay ahayd runtii waxaa dhici jirtay in gebi ahaanba qudaarta dalka laga keeni jiray dalka dibaddiisa laakiinse sanadka imkayna dhaafay waxa weeye sanad runtii beeraha iyo muxuu ahaayey dalagyada dalku ay aad u soo go'een haddii aan ka warbixiyo suuqa magaalada Hargeysa ee ugu weyn waxa weeye waxaanu arki jirnay markii hore in gebi ahaanba qudaar dibadda aan ka keeno iminka waxa aanu isticmaalnay ugu faraha badan 70% waxa weeyaan qudaarta waddanka ka soo goda hadday tamaandho tahay hadday basal tahay iyo hadday qudaartii dhammayd ee dalka ee ku wasiisaytay iyo haruuriyadii iyo dhammaan dalagyadii dalka soo go'ay runtii waxaad moodaa sanadkan ee sanadku u fiicnaatay waxaan kulley hawshaa si fiican u qabtay wasiirka beeraha oo runtii isagu dadka beeraleyda iyo dadka ka ganacsada intaba si fiican loo shaqeeyay وطهين بعض عبد الفتاح إمك حلقة لقلي ووقت جلالك بيرلدي وحودي الرويسة تعبسو صار دنبه يهولا دنبه وحنا مغلي إني أنت لو جري تعبسو صار كسنة كهوري عيان هذا اللي بي تطلع البيرلي ووحي أي طبعين بابي إذا كنا واحدين أوركي خضار ليلة dadka ka si ganacsada khudaarta la soo saaro marka cabashadii dadkaasi maxaa laga qabtay waxa weeye walaal cabashadii dadka ay cabanayeen waa run way jirtay ayaana fara badan iyo balanbaaliso ku dhashay dadka beeraleyda runtii waxaad moodaa iminka in wasaaradda beeruhu ay ka howlgashay oo iminka aad moodaa cabashadii dadka beeraleyda ka imaneysay inay muxuu ahaayey sidii ay wax iska bedeleen maasha Allah waxaan filayaa halkaa waxaan naga filaatay wasaaradda beeraha dadkuna si fiican bay dalagyadii ku soo go'aan maasha Allah waxa saamaxay inay waxa soo qudaar soo go'aan waxa weeye kulli beeriyo caafimaad qaba oo caafimaadkoodii imka la ilaaliyay bay waxa soo dalagyo soo go'een waxa kale dad hadli jireen in khudraddu ay isjabiso oo ay suuqa isbadhaysiiso oo ay markaasi marka damana iska khaysto oo ay noqoto khudaar la daadiyo oo matalan tamaandhada oo kale ay meel walba iska warnaan jirtay dadkina ka ganacsada khudaartu weli ma ka fikiraysan sidii loo keeni lahaa idinko kaashanaya ganacsatada in ka jeebka weyn warshada yaryar oo lagu farsameeyo khudaarta soo gooda oo markaasi dadka beeraleyda ay ku dhiiradaan inay wax sii wadaan oo wax soo saarkana lagu farsameeyo oo lagu kaydin karo hawlaal waxyaabo badan baa noo qorshaysan runtii waxyaabaha mar walba maskaxdayda ka dhex guuxaya waxa weeye in anagu aan isku tashano in anagoo kaashanayna dadka ganacsatada ah inay muxuu hayaan ka dalbaneen maalgelin noogu sameeyaan dhulka iyo beeraha iyo biyo xidhan ay noo sameeyaan oo mar walba muxuu hay ka codsana waxa kale oo haddii ay noo suurto gasho in aanu anaga laftiga u keensano warshado yaryar oo qaarkood ba imika tamaandhada qasaac oo kale warshado yar loo keeno waddanka laga soo saaro inkastoo weli laga keeno waxa lagu sameeyaa dibadda oo aan tamaandhada dalka laga sameyn waxaan doonayaa insha Allah ta'ala qaboojiyayaal warshado yar oo muxuu ahaan ku farsamayno qudaarta dalka qorshahayga weyn ayay ku jirtaa waxaan ku talagalnay cid kasto muxuu ahaayey hawsha wax nagala qabanaysana inaanu muxuu ahaayey aanu la garabsano waxyaabo fara badan ayaan ka baranay seminar maandhow talo ay noo qabteen muxuu ahaayey UK iyo muxuu ahaayey iyo ururkan Sonsaf oo isna runtii kaalin weyn ka geystay muxuu ahaayey wacyigelin badan una siiyo insha Allah qorshayaasheedii ku jirta inaan la kaashano cid kasta oo naga caawinaysa arrinkaasi haddii la haydmo Cabdifataax Axmed Mohamed oo kamida mas'uuliyiinta iskaashatada la yiraahdo Iidaan ka ganacsada khudaarta ee magaalada Hargeysa oo u waramayay Cabdullaahi Jaamac ayuu kaasi ahaa